ammaantu qofkay hodaa dhaliishu hankay dishaa talana ruuxa yeegtaa bismillaah salaamu calaykum bismillaah salaamu calaykum waa mar kale iyo xalqad kale iyo barnaamijkeena sirta nolosha maanta waxaynu ka hadli doonaa mowduuc aynu u bixinay waa maxay taladu sideese qof loola taliyaa qofka ibni aadamkii wuxuu la nool yahay bulshaad la nooshahay dad baad la nooshahay ama ha noqdeen dad aad asxaab tihiin ama ha noqdeen dad aad la dhalatood ma garanaysaa tihiin aad aqraab tihiin ama ha noqdeen dad aad wada shaqaysaan ama dad aad wax wada bartan qofka ibni aadamkii dad buu la nool yahay haddii aad jeceshahay iyo haddii aad neceb tahaybana dadkaas way ku saameynayaan si togan iyo si togan bay ku saameynayaan haddaba waxa la yiraahdaa qofku waa celceliska shanta qof la socdo shanta qof la socota haday shan tuug yihiin saalahan adiguna aad wadaad tahay si kasta oo wadaad u tahay ugu yaraan marka aad muddo la socoto haddii aad xataa tuug noqon weydo waxa laga yaabaa astaamihii tuugtay yeelato ilaa aad marka dambe iyagoo kala noqonayso haddii aad saas kala la socoto qof kale oo astaantiisaas had yeelanayso waxa la yiraahdaa qofku waa celceliska shanta qof hadba la socdo haddaba si hadaba dadka aad la socotaa ay u noqdaan dad san ay u noqdaan magaranaysaa dad aad hagi karto ay u noqdaan dad kula mida ay u noqdaan dad aad xusheegi karayso waa inaynu baranaa talada waa maxay taladu sideese qof loola taliyaa waxaad laga yaabaa inaad aad isku weydiiseen waa taa intaa la qeylinaye wadaadadu dadka waaninayaane abwaanadu dadka waaninayaane cid kasta ay cid u waaninayso maxaa loo qaadan lahaye talada waa maxay mushkiladda jirta waxaan doonaynaa mashaakilka jira qaarkood inaynu soo yar qaadano talada haddaba intaynaan iyada ka hadlin waxaan doonayaa waxyaabo kale oo lagu qaldo oo iyada la moodo inaynu marka hore ka hadalno waxaa jirta wax la yidhaahdo dhaliil tusaale ahaan qof aad asxaab tihiin ama sidaa aan kuu sheegay laga yaabo inaa magaranaysaa ku saameeyo oo ama family tihiin wax aynkaasa ayaa ku yimi wuxuu ku niyow waxaan doonayaa inaan gaari iibsado laakiin lacag ma haysto marka baloorkii ilaa halkii iigu yaaleen lahaa baan doonayaa inaan iibiyo dabeed qofka markiiba waad ku qayliday waxaad war miyaad waalantay warma baloorkii yaraayaad gebigaba haysad reerka doonsa dejisa qaylaad qofka ku bilowda judhiiba dee qofka wuu naxayaa wuxuusana war waa maxay waxaan kugu dhacay adiga laga yaabaa inuu ku soo tuhmay oo uu tala kaa rabay oo inuu waxaad la rogrogto buu kaa rabay ma garanaysa adigna markiiba waad ku qaylisay qofku wuu naxayaa dabadeed waxaa laga yaabaa dabadeed sheekooyinka noocaasa ama waxyaaba caynkaas ee weyn noloshiisa kaala tashanay inaan mar dambe ku iman oo kaala tashanba marka qofka lama talin ee waad ku qayliday waad dhaliishay qofka haddii aad markaa ereyo adag u isticmaasho dhaleecayn bay sii noqonaysaa haddii ereyo kale si adagoo xanaf leh aad u isticmaashana cay bay noqonaysaa iyo magaranaysaa si kale noqonaysaa marka dhaleecayn cay ayaa laga yaabaa mararka qaar in talada lagu qaldo haddaba waa maxay talada aynu doonaynaa talada aynu rabnaa shuruudo caynkee leedahay sidee bay u eegtay talada aynu rabnaa waxaan idhahdaa badayaa taladu waxay leedahay 3 shardi saddexdaas shardi haddii la buuxiyo aynu ka soo baxno waxay u ekaan karaysaa talo ta koobaad taladu waxay u baahan tahay dhugmo shayga ugu horeysa ay talo u baahan tahay waa dhugmo waa inaad shaygan u fiirsataa maxaad walaal gaariga ugu baahan tahay maxaad caynkaa ugu baahan tahay miyaanay talo kulahayn arrinkaa kale inaad samayso miyaanay kulahayn wixii kale annaga calashaan waxay u baahan tahay qofka inaad wareysato qofka inaad waqti geliso qofku inuu kaa dareemo qof marka aad la talinayso waa inuu dareemaa sida aad kalgacalka aad u muujinayso sida aad ugu fiirsanayso labadan shay oo kuu sheegay ee aad u darsayso waa inay dhugma jirtaa taladu waa inay jirtaa qofkani waa inuu taladaa kula rogrogaa waa shardiga koobaad ee taladu leedahay shardiga labaad ee tala leedahay waxa weeyaan in qofka ibni aadamkiihi inay taladu ka koobnaato laba qaar inay ka koobnaato qaarka ugu horeeya qofku inuu ku dhiirigeliyo marka taa waxaan sameeynaa waa arrin wanaagsan oo dawadigi bilakaadiga aha maalmahanba ee magaranaysa caynka waa arrin wanaagsan oo inaad fikirto oo aad magaranaysa waa arrin fiican laakiin talow miyaad u fiirsatay inuu baabuurta xumaan karayaan laakiin talow miyaad u fiirsatay in waxaas dhici karayaan waa inay laba qaar ka koobnaataa qaar ammaana iyo qaar dhaliila waa inay ka koobnaataa haddii kale dhinac bay taladu kaaga dheeliyeysaa oo qofka ama ammaan iyo inaad hodaabad u keenaysaa ama dhaliil iyo inaad qofka magaranaysaa niyad jabisaabad u keenaysaa marka
waana taladu labada qaar ka koobnaataa oo aad qofka labada dhanba ka soo sharaabisa oo aad taa dhankaana bilaysaasi dhacda waa arin fiican laakiin bilaysidaasina ku dhacda waa shardiga labaad ee tala leedahay shardigii koobaad wuxuu ahaa qofku inuu dhugma yeesho oo aad waxaan dhugato oo ku sheegayo shardiga labaadna waxa yahay inay taladu laba qaar ka koobnaato shardiga saddexaad waa shardi muhiim waxa weeyaan qofka marka aad waxaan u sheegayso inaad u qariso qof baad arkaysaa halka wax xun ku sameynaya mid kale ay soranayo waaniyo wanaaji dadka hortiisa buu ka dhex qaylinaya waad maad waalan tahay waxa laga yaabaa qofkan halkan slide ka waaniyo ha soo hanuunsamo inuu kaba sii daraa laga yaabaa kulka markaad qof tala u sheegayso soo kaxee gaar ugu sheeg gaar ula rogrog gaar labadii shardiye hore ma garanaysaa ayay ugu sheekee gaar waxa aad u sheegayso ugu sheeg qayb weyn bay ka tahay qofka inaad talada u qarin karaysaa qof marka aad tala u sheegayso haddii aad aragto xataa inay dadkaag dhow yihiin marka ay dadkaasi ka soo dhamaadaan kadib qofka u sheeg u qari qofka talada saddexda shardiye muhiimka bay tala leedahay koow waa inaad qofka la rogrogi karayso laba taladaada waa inay laba qaar ka kooban tahay saddex qofka marka aad talada u sheegayso inaad u qarin karayso haddaba saddexdaaba shayba waxa samayn karaya qofkan kalgacal u haya qofkan haddaad neceb tahay mid bay kaaga dhacaysaa ama ammaan bay kaaga dhacaysaa ama dhaliil bay kaaga dhacaysaa marnaba lama talin karaysid qofaad neceb tahay waata Soomaalidu taada marka qof wax ku siiyo waad heshaa laakiin qof kula taliya ma heshid way adag tahay haddii maanta 200,000 qof ay saa ku soo hor fadhiistaan oo 200,000 qofba aad neceb tahay oo la yiraahdo dadka wacdi lagu yiraahdo way adag tahay in dadka wacdida wada xusheegta way dadkan ma jeclida marka saddexda shardi waxa ka soo bixi karaya oo kula talin karaya qofku jecel marka horeba u tag qofku jecel oo aad ku kalsoon tahay oo ma garanaysaa la jecel ka qaba talo la jecel kama soo hadho qofku waa inuu la jecel ka qaba iyadoo taladu sida u kala duwan tahay oo la jecelada u baahan tahay ayaa hadana taladu mar cid aad u sheegayso ku xiran tahay haddaad ilmahaaga la talinayso qaab baad ula talinaysaa haddaad aabaha la talinayso qaab baad ula talinaysaa haddaad macallin tahay arday la talinayso qaab baad ula talinaysaa haddaad wadaad tahay dad wacdiyayso qaab baad ula talo iyadoo ay kala duwan tahay ba hadana hadba waxay ku xiran tahay cid aad u sheegayso iyo bi'ada aad u sheegayso laakiin waxaan u arkay saddexda shardi inay tahay saddex shardiyo ay tala kasta iyo cid kasta oo u sheegaysa in saddex shardiyo muhiim ay tahay aynu baranna talada aynu baranna sida dadka loola taliyo aynu baranna sida dadkeena adigoo u la jecel waramaya inaad la jecel wacdi karto inaad la jecel talin karto in adigoo oo dhuganaya adigoo oo qofka niyad jabinayn adigoo oo dhiiri gelinaya adigoo oo u qarinaya qofka ceebtiisa inaynu la talin karayno aynu barno qofka aynu baranno sida dadka loola taliyo waxaan ku soo gabagabaynaynaa tixdiirada ahayd amaantu qofkay hodaa dhaliishu hankay dishaa talana ruuxa yeegtaa oo mahadsantiin